maanta waa maalintii loo bixiyey maalinta beeqa caalamiga xuquuqda insaanka adduunka oo 75 jirsatay oo maanta 10 December sanad kasta loo dabaaldego sida la socotaan 1948 ayaa la isku raacay oo dadkii dowladihii markaa jiray ay isku raaceen marka inaguna dunidaynu ka mid nahay inkasta oo xuquuqaha bini aadamkuna ay inagu waajib yihiin haddana sharci ahaan innaga weli laynaga hortaagan yahay inaynu si rasmiya dunida uga mid noqonno laakiin diinteenna iyo bini aadamnimada iyo caqligeenna wuxuuna farayaa inaynu xuquuqda bini aadamka is ilaalino inagoo aan cid kale oo inagu hosbaysa ama baaqyada caalamiga oo inagu hosbaya aana jirin laakiin waxaa inagu hosbayaa garashadeenna iyo iimaankeenna iyo dowladnimadeenna iyo diinteenna ansixinta la ansixiyey 8 sano ka hor runtii inagu saynu taariikhda islaamka ku hayno dad islaama baynu nahay baaqyada ugu waaweyn ee ku jira waxaa ka mid ah qofku inuu xor ku dhashay marka baaqan caalamiga aad akhrido artikelka koowaad ayaa sidaa dhigay laakiin waxaynu la soconnaa in inagu dad muslim baynu nahay oo waxaa jira waxa la yidhaha maqaasidu shariica diinta islaamku markay soo degtay 5 wax bay lahayd nafta bini aadamka maalka yadiisa iyo xurmadiisa sharaftiisa nasabkiisa maqaasidu shariica baa la yidhahdaa markaad akhrido wadabadan human rights declarationkan 30 qodob ka kooban waxaad arkaysaa in laga soo degtay gebigeedaba maqaasidu shariica marka waxa dee marka layna barayo oo laynagu tacaliminayo maaha qodobka ugu horreeya ayaan tusaale idinka soo qaadanayaa waxaa weeyaan wuxuu leeyahay dadku waxay dhasheen iyagoo xora sidaa aweed waa xor cumar bin khadaab oo ahaa amiirkii muuminiinta ayaa ninkii waaliga ahaa ee masar xukumayay oo camar bin caas oran jiray inankiisi nin malaha dadka dee markaa dee la xukumayay ka midaba iyo inankiisii inan kala beretilay dabeedna inankiisii baa laga dheereeyey ama laga guulaystay dabadeedna wuxuu ku dhuftay nabar isagoo yasiyo oo le dadkii aan haysanay oo kale aan xukumaynay oo kalaata cumar bin khadaab soo xarooda buuriyo kaale madiina berigaana waxaa ma jirin madiina iyo qaahirayntiisu jira waa taqaaniin halkaasuu yimi maqaal taariikhiya buu yidhi wuxuu yidhi ma waxaa dadka addoonsateen iyagoo ay hooyooyinkood dhaleen iyagoo xora marka waxaad moodaa markaa ka goosa buu yidhi halkaa kaga jaro horteeda marka waxaad moodaa qodobkaas ku horreeya artikelka human rights declaration ereygaasaa ku qoran markaas dadku waxay dhasheen iyagoo xora sidaasay xor u yihiin marka macnuhu waxa weeye layna bari maayeen waxay u baahan tahay inaynu ku dhaqanno inaku maadaama aynu taariikhda intaa la egleenahay historyga iyo taariikhda ay ku soo baxday 48kiina waxay ahayd waxyaabo dhowra baa keenay dagaallo waaweyn baa dunida ka dhacay dagaalkii koowaad baa dhacay kii labaad baa dhacay kii labaad baa markaa laga soo baxay adduunyada 60 milyan oo qof baa ku dhintay dagaalkaa dee reer galbeed baa hogaaminayay markaasaa la yidhi dunidu dee bal waxaa ku heshiisa waxaa kaloo ina markaa jiray dad dowlado badan baan xorahay marka ugu horeysa dadkooday ku kala celinayeen oo iyagaaba madaxa iskula jiray dowladaha waaweyn laakiin duruufahaasu ku soo baxay su-aasha waxaa weya imika ma la dhaqan geliyaa lama dhaqan geliyo dadkii markaa samaystayna ma dhaqan geliyaan
waxaa jira double standard ay ku dhaqmaan dowladaha waaweyn ay samaysteen dadkooda dowladahooda gudahooda iyo muwaadiniintooda way ku dhaqaan waanay ku saxsan yihiin inay ku dhaqaan oo xuquuqda waa la ilaaliyaa markay dalalkooda joogaan laakiin markay dalalka kale tahay iyagu laftooda way ku xadgudbaan oo dagaalada dunida ka dhacaya iyo dhibaatooyinka ka dhacaya iyo dadka sida duruufaha nololeed ay ku jiraan sida ay ugu lug leeyihiin bay ku tusaysaa matalan falastiin baa imika soo hadal qaaday magaalo dhan oo 2 milyan iyo 500 kun oo shaqo ayaa la boqoraynayaa hubkii ugu casrisanaa adduunka lagu boqoraynaya iyo kuwa biniaadamka mamnuuca dowladihii hogaaminayay xuquuqda biniaadamku waxay leeyihiin israa'iil waxay xaq u leedahay inay magaalada dhan dumiso markaa ma ilaaliyaan ee way ku xadgudbaan laakiin marka magaalooyinkooda waa in wax ka dhacaan qof haddii iyadoo waxaa odhanaya cidka marka waa la isku dhalaalinaya waxaa odhanaya xuquuqda meelka ka dhaca marka horta double standardkaasaa ka socda taasna waxaa loo baahaya in sidaa loo fahmo waxaan kusoo gabagabeynaya waxa weeyaan innaga somaliland saameyn bay nagu leedahay saameyntii nagu leedahay waxa weeyaan xuquuqda biniaadamka marka lasoo hadalqaadayo intii yaga imika aynu isugu furmadayno maaha way ka ballaaranta baaqa caalamiga ah ee xuquuqda ilaalinta xuquuqda biniaadamka waxaa marka hore waxaa ansixiyey general assembly waxay mar labaad ka daba ansixiyeen baaq kale oo la yidhahdo self determination xaqa ka talinta ummadaha marka waxay leeyihiin qofku aayihiisa siyaasadeed iyo statuska uu qaadanayo xaq buu leeyahay macnuu waxa weeye hadduu madax banaanaanayo hadduu dowlad kale ku biirayo hadduu gaari isu taagayo xaq buu leeyahay sida kan loo ansixiyey la noogu khudbadeeyey lagu soo celiya kana loogaas waxaa ogaataan xaquuqdaana innaga waa laynaga hortaagan yahay shuruud kasta inagoo buuxinay waxaa kaloo ayana ku jirtay africa oo markii iyana la aasaasayey 1963 baaqeed ugu horreeyeen oo ahaa inaan xuduudii isticmaalka waxba laga bedelin taana inaga waxba kama imaan bedelin sidaa awadeed waxaa la socotaan dee dadka xuquuqaha ku dulman baynu nahay lafteeda taasuna waa taa waxaan kusoo gabagabeynayaa kelmadinka agaasimihii u sheegayey oo ahaa dadka carruurta aan aabbayaasha lahayn oo qaarkood meelahan dariiqyaba ugu tuuro marka waxyaaba aada u baahan runtii naxdin laba argagaxa oo aynu wacyigelin badan uga baahannahay maadaama aynu nahay wasaaraddii warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta waxaan u baahannahay culimada hay-adaha xuquuqul insaanka dadka abwaanada iyo sugaanta iyo dadka kale acyaanta in hawshaa wacyigelin badan laga sameeyo aynu ka wada qayb qaadano si dhaqankaa faasidka ah ee foosha ku leh loo baafiyo berigii hore dee sugaanta aad baa loo gedi jiray horta waxaanu imika xasuusto oo biijkaa ka gabiyey waxaanu yar xasuustaa atraawi gabaya leedahay bayay kaga jirto ilmo la tuuray buu kusoo daraya isagoo inaan tusaale u siinay marka wuxuu yidhi haddii warka hafreen astaan gaala lahaa arxan goysay markii xeer loo ku dhaco ubadkii maganta haadka eegaya ee balalbaabka garaac umur baa hurdo ilmahaydii hataa xalay ay hurtay markaa horta hawshaa waa in la iskaashadaa komishinka xuquuqul insaanka wuxuu mahadsanyahay inuu arrintaas soo dhigay aan ka wada shaqeyno asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu